maalintuu dhimanaya Abu Dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaah xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi maxaad loo oyeysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysta buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo masjiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa inaga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaacad muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalintaa aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doonta iigu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qayb geli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sakaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax ka horsocday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay baa aragta jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii baa markaa sidaa u tidhi baa la dhihi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay idhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahaya ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada u yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga ina sii sheegay buu yidhi xadiiskii nebigu markii buu bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oy u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaa ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaadee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayo raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inagu jiro dharka uu sitaa aniga kafan ha iga dhigina buuhi kafan ugama barin dharkaaska muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jirhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadkaa uu aakhiro la tegaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen marayna waxaa ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaali gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami faannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwadaaday taatiirisaa shahwadaada way saamayn ubadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa